qodob ayaaba in badan idin kamid in macnihiisa ay xasuusan ayaa rabaa inaan ka hadlo oo ah macnaha uu ku fadhiyo shumiska ama dhunkashada. Shumis ama dhunkashadu asalkiisa iyo macnihiisu waxa weeye isku soo dhawaansho, inuu qofka kala soo qaabilo si hoose iyo si koraba weeye. markuu ninka xaaskiisa shuminayo ama dhunkanayo macnaheedu waxa weeye qalbigayga aduu xaggaada u jeedaa weeye, naxariis iyo kalgacayl baana kuugu hayaa. Shumiska ama dhunkashadu waxaa la yidhahdaa caalamka dadka ku nool 90% baa isticmaala, 10% ma isticmaalaan. waxyaalaha u diinaya waxaa lagu tilmaamay inay yihiin caadooyin ama dhaqamo ama diimo inay u diidayaan, laakiin 90% ayaa caalamka isticmaala shumiska. ninka xaaskiisu markuu nukado ama haweeney ninkeeda ay shumiso macnaheedu waxa weeye isku soo dhawaansho hor leh oo ay sameynayaan. qofku markuu qof kale shuminaya xaafkiisa kasoo baxayaa la yidhi 100 bacteria, laakiin bacteriaas wax ma dhintee waxbay anfacdaa. qofku markuu qof shuminayo waxaa la yidhahdaa dheecaanka afkiisa xataa kasoo baxaya caliyada waxa la midka ah waxay dilayaan ilkaha bacteriyada gasha, walidaalika la yidhahdaa dhunkashada iyo shumisku ilkahayba u fiican tahay oo u habboonta. taariikhda goortii la bilaabay la garan mayo, taariikhyahanaduna way ku wareereen ama way isku khilaafeen xilligii la bilaabay, laakiin muhiimaddu waxa weeye inay tahay shay qaali ah oo ninkii xaaskiisu ay isdhaafsadaan. muhiimaddu ma ahan goorta la bilaabay iyo waqtigii ay kasoo kacday, laakiin muhiimaddu waxa weeye in ninku xaaskiisa ama xaasku ninkeeda dhaafsato dhunkasho. waalidka iyo caruurta sidoo kale waa shay asaasiya, caafimaadka iyo qalbiga u fiican. waxay tilmaamaan nimanka khubarada qofka hadduusa intuu nool yahay 2 isbuuc uusa shumis gelin caafimaadkiisa dhinaca jirka iyo qalbiga ah hoos u dhac waa ku imaanaya. qof markaad shuminaysid qalbigaada jiradihiisa way soo kordhaan, si degdeg ah ayay usoo kacaan, waxayna maskaxdaadu helaysaa oxygen dheeraada. waxaa la dadka isa shumiya 70% markay wax shuminayaan dhinaca midig ayay u leexdaan, madaxa u qalloociyaan. taana waxay tilmaamaysaa abuuris dhinaca ilmogalaanka, ilmo markii la abuurayay ku abuuran oo ka timid wey, siday tilmaameen kuwa cilmi baaris sameeya ku saabsan arrintaas. waxaa la yidhahdaa qofka markii qabow uu haysto meeshuu gacmihiisa dugsan lahaa ama dugaal kala raadin lahaa hadduu shumis ama dhunkasho sameeyo taasaa oga dugaal fiican oo u roon. caalamka dadka qaarkood waxay sameeyaan dhunkashada u yaqaan sanka inay istaabsiiyaan, taasay isdhaafsadaan markay isdhunkanayaan is shuminayaan, waa caadooyinkooda. xitaa xayawaanka duurjoogta ah oo isshumeen waa isdhunkadaan, xanaano daraaddeed iyo kalgacayl isku qabaan. kayfa dadka iyo bini-aadanka ilaahay karaameeyey isagoo macaan oo qurux badan yahay shumisku, haddana dhinaca caafimaadka ayuu u fiican yahay. waa xanaano, isku soo dhaways iyo dadku inay isqaabilaan oo isjecel yihiin. waxaa kaloo siyaadiyaa shumisku ama dhunkashadu quruxda jirka, waxay kaloo hoos u dhigtaa korokaca dhiigga. aad bayna ugu fiicanta qofka xanuunsan markii la shuminayo la dhunkado ay ka qayb qaadataa xagga moraalkiisa. dhunkashadu ama shumisku wuxuu sababaa in hormoonka qofka maskaxdiisa ay kor u kacdo heerkii loogu talagalay ay gaarto. ujeedku waxa weeye in la isu shumiyo la isdhunkado, gaar ahaan waalidka iyo caruurtiisa, labada isqaba, walaalaha wahaakada. waxay kasii qayb qaadanaysaa jacaylkooda, naxariistooda, xanaanadooda, isku dabacsanaantooda, isku dulqaadka, waxaasoo dhan bay ka qayb qaadanaysaa. ninku markuu guriga soo galo xaaskiisa shumiyo, caruurtiisa shumiyo, jawigu waa jawi caafimaad oo quruxsan. heerka qoyskiisu wuxuu gaarayaa heer aad iyo aad u sarreysa oo xagga quruxda iyo farxadda ah.